السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خياتكو حيران channelkan أحمد دارقني kusoo dhawaada muuqaal cusub. Ramadaan mubaarak. Maantay waxaynoo bilaabanayaa qaybteenii koowaad ee Ramadaan iyo aqoon kororsi. Haddaba qaybtani waxa ay ku saabsan tahay taariikhda Islaamka. Su'aaluhuna waa mid dooro oo waxay leedahay su'aasha markii lagu weydiiyo 3 jawaabood ama 4 jawaabood oo wax lagu siinayaa kala duwan mid ayaad ka dooranaysaa. Haddaba aynu bilaabano. Su'aasha koowaad waa maxay magaca ninkii dilay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu? Jawaabta koowaad Abdurrahman ibn Muljim. Jawaabta labaad Burq ibn Abdullah at-Tamimi. Jawaabta saddexaad Sa'ad ibn Malik. waxaad haysataa 15 second si aad uga faa'iidaysatid oo uga jawaabtid su'aashaas. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة. jawaabtu waa Abdurrahman ibn Muljim. su'aasha labaad yaa hogaaminayay ciidankii muslimiinta ee ugu horreeyay ee furtay Qudus? jawaabta koowaad Khalid ibn Walid. jawaabta labaad Abu Ubaidah ibn Jarrah. jawaabta saddexaad Sa'ad ibn Abi Waqqas. جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول رمضان ده حياتي شمال مماتي. jawaabta saxda ayaa ah Abu Ubaidah ibn Jarrah. qisadan markii hore waxaa hogaaminayay dagaalka Khalid ibn Walid, balse Khalid ibn Walid waxaa laga qaaday taliyanimada markii uu noqday khaliifka Umar ibn Khattab, waxaana taliye ka dhigay Abu Ubaidah ibn Jarrah. sidaas ayuuna Abu Ubaidah ibn Jarrah noqday qofkii ugu horreeyay muslim ahaa ee furtay Qudus. haddii aanu gudubno su'aasha saddexaad, kumuu ahaa dagaalyahankii aan weligiis la jabin? jawaabta koowaad Qacqaac. jawaabta labaad Khalid ibn Walid. jawaabta saddexaad Hamza ibn Abdul Muttalib. يا ربي دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. jawaabta saxda ayaa ah Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid weligiis dagaal laguma jabin maxaa yeelay waxa uu ahaa Sayfullah al-Masluul. su'aasha afraad meeqa maalin ayuu Cali sii noolaa kadib markii uu soo weeraray Abdurrahman ibn Muljim? jawaabta koowaad 5 beri. jawaabta labaad 2 maalmood. jawaabta saddexaad 4 maalmood. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة. jawaabta saxda ayaa ah 2 beri. waxa uu noolaa oo kaliya Jimce iyo Sabti, waxaana la aasay habeenkii Axad. su'aasha shanaad kumuu ahaa hogaamiyihii ciidamada Furus ee lagu dilay dagaalkii silsiladaha? jawaabta koowaad Jacfar ad-Dayyar. jawaabta labaad Hurmuz. jawaabta saddexaad Safwan. jawaabta saxda ah waa Hurmuz. waa ninkii hogaaminayay ciidamadii Furus ee lagu jibiyay dagaalkii silsiladaha. waxaan filayaa waxaan kaga faa'iideeyay mowduucani maantay. inta ku kulmi doona mowduucan lamida waxaa idinkaga tegay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير.